wax kasta waa macquul haddii aad aaminsan tahay waxaad adiga jeceshahay adiga ayay ku fiican yihiin marna yaan lagu qasbin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا دين سلام يا أصحابتا ملك الصدوم كجوكتين وحن دين لا يا مرة دان اسكسو الله وناي مر لباد ولي بسين نبضة ومهد إلي الله إنه كان يسين نبضة. أنا في جودي قلب برامج كمان تو حنينو هايا وقاعد يرجلينا إن واحد كسوا معقول هديات أمين سنتاي واحد أديك جعشاي أديك أيكو في عينهن مرنا يالو قصبين معاكو كيني وحانكو كيني waxaad adiga jeceshahay hammi aad u leedahay si dadaal si aad ugu gaartid heer sare. waxaan aragnaa dad badan oo ka dhacay nolosha oo sameeya kadibna ka quusta ayagoo si kale wax ka noqdaan. muhiim ma aha inaad lacag haystid amba aad joogtid meel qurux badan, laakiin muhiimaddu waxay tahay inaad adiga nafsadaada aad dhiirigelisid kadibna aad samaysid waxyaabo badan. waxaad jeceshahay adiga ayay ku fiican yihiin. maxaan ku keenay midaasna waxaan ku keenay maanta haddii lagu qasbo waxyaabo aadan adiga rabin aadna samayso waxaa hubaal ah inaad ku khasaaraysid waxaasi abadan aadan ku faa'iideynin. maxaa yeelay adiga ma rabtid mar waliba xaqa sii waxa aad adiga rabtid inaad horumar aad ka gaartid, in aad meel sare aad ka gaartid, hiigsi aad u yeelatid kadibna aad guulaysatid. إلهي سبحانه وتعالى وحو قرآن كيسكو يري إن الله مع الصابرين. إلهي وحو لجرا دتك صبرا ويجران عقبضة فربضان أو كاهر إيمان كرا سيدر دنك والدك دنك أصحابتا دنكستا عقبضة أيا كاهر إيمان كرا. لكن مهمة وحيت هاي إن هذا نك جلق أصينين إلا أن دت وحاجر حاسدين أو مر والبا كو كلفة إنات وحا أد وديد دلالك أد وديد أد كجوكستيد. laakiin hal mid ayaan ku maslaxaynayaa haddii aad ka joogsatid qofkaas daraadiisa waxa aad adiga rabtid aad ka joogsatid horumarka aad rabtay hiigsiga aad ka joogsatid hubaal ninkaas ayaa ku xukumi doona wax horumar aan ma samayn doontid. mar walba isku daytid inaad wax samayso ninkaas ayaa ku dhihi doona nirniyo waxaan ma keentay waxaan ma samaysay kadibna waad iska dayn doontaa ilaan waxaad fiirinaysaa hadalka dadka weligaa ha fiirinin hamigaada iyo hiigsigaada ha ku sareeyo. dabcan saan wada ognahay guushu waxay u baahan tahay sabr. ina allaha maca asaabiriin. tan kale caqabaday leedahay caqabadahaas oo ah waddadii aad ku tagi lahayd guusha. waddada aad ku tagi lahayd guusha waa inaad sabartaa. ilaahayna wuxuu la jiraa dadka sabra. marka waxaan kugu maslaxaynayaa inaad sabartid si kastoo aad tahay isku kalsoonow niidaadana sii kalsooni, waayo haddaadan kalsooni helin meel ma gaaraysid. waa hubaal midaas haddaadan kalsooni helin meelna ma gaaraysid. igu soo xasuuso. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.